waddanka boqortooyada Belgiumka waxa uu ku yaalaa galbeedka qaaradda Yurub wuxuuna xuduud la leeyahay wadamada France, Netherlands, Germany iyo Luxembourg. waa waddan aad u yar oo lagu sheego qiyaastii inay baaxadiisu tahay 30,528 kiiloomitir laba jibaaran sidoo kalena kaliya ay ku nool yihiin dad gaaraya 11 milyan taasoo ka dhigan inuu yahay waddanka 17aad ee adduunka ugu dadka badan. marka aan ka fiirino xagasha kubadda cagta waddankan waxa uu ka mid yahay wadamada aadka loogu tixgeliyay ciyaarahaas muddooyinkii ugu dambeeyay isla markaasna ay u soo kaceen jiil aad xariif uga xirfadda lagu xamaasho ee kubadda cagta. iyadoo ay taasi jirto ayaan haddana maanta idiin soo gudbinaynaa qaar ka mid ah ciyaartoyda ugu caansan ee qaranka Belgiumka kuwii hore iyo kuwa hadda wadamada ay rasmi ahaanta ugu dhasheen maadaama Belgiumku uu ka mid yahay wadamada qaabilay qaxootiga ugu badan ee ka yimaada qaaradda Afrika. Vincent Kompany kabtanka kooxda kubadda cagta ee Manchester City waxaa iska dhalay oday Pierre oo u dhashay Congo iyo islaan lagu magacaabo Joycelina oo iyana u dhalatay Belgiumka si adraadeed xidigan waxa uu ka soo jeedaa waddanka Congo Democratic Republic ee ku yaala bartamaha qaaradda Afrika. Jordan Lukaku iyo Romelu Lukaku waa laba ciyaartoy oo wada dhashay kuwaas oo ka mid ah qaranka Belgiumka waxay u kala ciyaaraan kooxaha Manchester United iyo sidoo kale AS Lazio. waxaa iska dhalay aabba iyo hooyo u wada dhashay waddanka Congo Democratic Republic. aabbaha dhalay waxaa lagu magacaabaa Roger Lukaku kaasoo mar u saftay waddankii la oran jiray Zaire balse hadda loo yaqaano Congo DR. Marwan Fellaini xidigan waxaa iska dhalay laba waalid oo Marocco ka soo wada jeeda. waa wiil ku dhashay magaalada Tangier ee ku taala waqooyi galbeed Marocco waxaana uu leeyahay walaal lama taan ah. sidoo kale aabihiis waxaa lagu magacaabaa Abdelatif kaasoo ahaa goolhaye hore. Kevin De Bruyne waa xidig ku ciyaara kooxda kubadda cagta ee Manchester City waxa uu ku hadlaa luqadaha Dutch, French iyo sidoo kale English. waxa uu leeyahay gabar la dhalatay oo lagu magacaabo Stephanie De Bruyne. wiilkan waxaa dhashay hooyo u dhalatay waddanka Ingiriiska waxaana uu ku dhashay waddanka Burundi sidoo kalena waxa uu mar ku soo noolaaday waqtigiisa hore waddanka Ivory Coast ee ku yaala qaaradda Afrika. Moussa Dembele xidiga Spurs waxaa iska dhalay laba waalid oo ka soo wada jeeda waddanka Mali balse waxa uu ku dhashay xaafad ku taala waqooyi galbeed magaalada Paris balse waxa uu qaatay dhalashada waddanka Belgiumka. Kevin Miralles waxa uu ka tirsan yahay kooxda Everton. aabihiis waxa uu ka soo jeedaa waddanka Spain si darteed wiilkan asal ahaan waa Spanish balse waxa uu bareeray inuu qaato dhalashada waddanka Belgiumka. Divock Origi xidigan ay milkiyadiisa leedahay kooxda Liverpool waxa uu ka soo jeedaa dalka Kenya. waxa uu ka soo jeedaa qoys kubadda cagta ah aadna ugu fiican laguna tixgeliyo kubadda cagta balse nasiib wanaag waxa uu ku dhashay waddanka boqortooyada Belgiumka. Nasser Jalli ayaa ka mid ah xidigaha Belgiumka ah ee ka soo jeeda qaaradda Afrika. xidigan waxa uu haystaa laba dhalasho oo Morocco iyo Belgium ah waxaana uu u ciyaaray kulan saaxiibtinimo qaranka Morocco sanadii 2010 balse markii dambe waxa uu doortay inuu ciyaaro xulka qaaradda Yurub ka dhisan ee Belgiumka. Christian Benteke xidigan waxa uu ku dhashay caasimadda Congo Democratic Republic ee Kinshasa sanadii 1990 balse waalidkiis waxay u adkeysan waayeen xukunkii kaligitaliskii Marshal Mobutu oo waddanka markaas maamulayay waxaana ay u guureen magaalada Lega ee waddanka Belgiumka sanadii 1993. Daniel Van Buiten halyeeyigii hore ee xulka waddanka Belgiumka waxaa iska dhalay aabba la yiraahdo France oo ahaa musaariciista caanka ah qaaradda Yurub iyo waddanka Belgiumka iyo hooyo Jarmal ah oo lagu magacaabo Renate balse isaga waxa uu doortay inuu matalo qaranka Belgiumka oo waqti badan ka mid ahaa.